soo dhawaada asxaabay qof kastaba wuxuu iska jecel yahay inuu dhulka hoostiisa wax qaaliya ka helo haba ahaatee waxa uu helayaa macdan dadkii hore ka tageen ama lacag waxyaabaha ugu fiican ee qof kasta ku riyoodana waa inuu biyo ama dhul hoostood ka helo qasnad dahab ah oo dadkii hore ku qarsadeen si aanay dadku ugu qabsan oo kaliya gaar u yeesho laakiin waxyaabaha qaaliga ah waxa helo oo kaliya dad yar oo nasiib badan barnaamijkeenan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa dad nasiib badan oo biyaha hoostooda waxyaabo qaaliya ka helay ee si daawo muuqaalka si aad ula socotid silsilad dahab ah adduunkan qof walba waxa uu leeyahay hobby ama hiwaayad gaar ah hiwaayadda ninkan Roy Fargasna waxay ka mid tahay hiwaayadaha cajiibka ah ee caalamkan waxa uu ninkan waqtigiisa firaaqada jecel yahay inuu meelaha biyuhu ku jiraan tago sida wabiyada iyo badaha kadibna ka raadsado biyaha guntooda jawharad iyo dhagxaanta qaaliga ah ee dahabka marka uu helo macdanta qaaliga ahna waxa uu ka sii gadaa dadka ka ganacsada dhagxaanta qadiimiga ah sidaas aan lacag ku faa'iidaa haddaba maalmaha ka mid ah isagoo ninkani ku guda jiray hiwaayadiisii waxa uu ku guuleystay inuu helo silsilad dahab ah kadib markii qalabkii uu watay uu sheegay inay goobta wax ku jiraan uu baaray waanu ka soo saaray waxaanu rumaysan kari waayay silsiladda uu helay qaabkay u eg tahay waxaanay lahayd qaab weji sanam oo kale sidoo kale miisaankeedu wuu cuslaa wuxuuna ku qiyaasay 14 gram oo dahab ah sida laga soo xigtay dadka dahabka duugoobo dib uga ganacsada waxay ku qiimeeyeen in qiimaheedu ahaa $300 dahab meel aad ka hesheen in lacag wacan laga siisto waxay ku xiran tahay in dahabka wali muunadiisu wacan tahay iyadoo ay ka horeyso inaad raadiso dahab inaad haysato qalabkii lagu sahminayay dahabka bastoolad Jake waa nin sahamiyaha oo ka soo jeeda waddanka Mareykanka waxa uu leeyahay channel YouTube oo ay ku xiran yihiin ku dhawaad 3 milyan oo qof waxaanu caan ku yahay inuu sahamiyo waxyaabaha qadiimiga ah ee lagu ilaaway badaha harooyinka iyo wabiyada badana waxa uu soo duubaa soo geliya YouTube-kiisa waxyaabaha ugu la yaabka badan ee uu helo waxaanu maalin webigan ku yaala magaalada Columbus ee waddanka Georgia ka helay bastooladan waxaana laga yaabaa sida uu ninkani muuqaalkiisa ku sheegay in qofkii ogaan ugu tuuray bastoolada biyaha isagoo markaa ka baqanayay in lagu qabto laakiin arrinta la yaabkahi waxay tahay inaanu ninkani bastoolada qaadan kadib markuu helay balse uu toos u wacay booliska magaalada markii uu yimaadeen uu bastoolada ku salaamay nasiib xumo wax abaalmarin ah maysiin balse waxay uga mahad celiyeen wadaniyadnimadiisa haraable aadan dhacdadani mar kale waxay ku dhacday sahamiyaha hore ee Jake iyadoo ka dhacday isla magaalada Columbus ee Georgia ku taala waana magaalo wabiye leh kuna qaniya dahabkii dadkii hore ka tageen haddana dhacdada ku dhacday ninkan lama oran karo waxa uu helay khasnad dahab ah markii uu ninkani u soo dhawaaday una isiri fur khasnada waxa uu ku arkay boorso kale oo ku sii dhex qarsoon kadib markii uu dusha ka taabtay uu ka baqay waanu ka cararay waxaanu ninkani muuqaalkiisa ku sheegay in shandada yar ay ku jireen lafo iyo hadhaa qof bili aadan ah xoogaa lacag ah dadka qaar waxay helaan waxyaabo qaali ah iyagoon waxba u jeedin danna aan ka lahayn ninkan waa kalluumayste ka kalluumaysanayay webigan isagoo hiwaayadiisa ku jira waxa uu helay xoogaa lacag ah oo bac ku xiran dibadda ayuu la soo baxay waxaanu isiri xisaabsan lacagta kadib markii uu eegay waxa uu ogaaday inay $4,000 tahay laakiin waqti yar kadib waxa uu kalluumaystahani ogaaday in lacagta uu helay ay ahayd lacag fake ama falsa ah nasiib xumadiisana waxa uu gabi ahaanteed ku tuuray bartii ninkani waxa uu badda ka raadsanayay macdan iyo dahab laakiin taa bedelkeeda waxa uu cilifka badda ka helay kuus lacag ah nasiib wanaagiisana lacagtu waxay ahayd mid xaqiiqo ah marka uu hubsaday inay lacagtu caadi tahay waxa uu ninkani xisaabsaday lacagtii waxaanu sheegay inay tahay $110,000 laakiin waxa isweydiinta leh waxay tahay yaa lacagta inta leeg kaga tagi lahaa badda dhinaceeda nin nasiib badan adigu daawada maxaad ku samayn lahayd lacagta haddaad hesho baabuur niman wax sahminayay waxay baabuurkan qadiimka ah ka heleen Oslo Fjord marinka laga galo koonfurta bari ee waddanka Norway nimanku waxay la yaabeen waxay ahayd markay arkeen in gaariga noociisu yahay BMW X5 gaariguna wuu cusbaa laakiin waxa qariyay dhirta badda oo hore kama garan noociisa haddaba siday arrintu ku dhamaatay nimankii waxa u yeedheen baabuur weyn oo wiish ah waxaanay gaarigii ka soo saareen biyihii kadib arrintii waxay la wadaageen dadkii ku xeernaa deegaanka waxaana loo sheegay in baabuurkan dambi lagu galay kadibna si aan caddayn loo helin biyaha lagu dhex qariyay daawada commentiga nagu sheeg ra'yiga aad ka haysatid waxyaabaha aanu soo sheegnay oo dhan aad ayaad u mahadsan tahay